بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشا كحرنا قيل وفيشيال كسو دبادة برنامج كينا وينا كغهد لينيه قاميي لبعض تاريخ الإسلام كأبو بكر الصديق قيبتي صلوات قار انتا برنامج كقودة قليل سبسكرايب تصار سيدي رجلين إنه نقطة mid ka mid ah safaradiisa ganacsi isagoo ka soo noqday dalka Yemen ayaa waxa uu Abu Bakar as-Siddiq lagu wargeliyay in waqtigii uu maqnaa in adeerkii Muhammad ku dhawaaqay nabanimo waqti yar kadib markuu u kuur galay isla markaana uu fahmay Abu Bakar as-Siddiq uu rumeeyay diintii uu soo bandhigay Nabi Muhammad wuxuuna noqday ninkii ugu horeeyay ee qaata diinta Islaamka marka laga reebo qoyskii rasuulka oo isaga oo shaaca ka qaaday in isla mar ahaantaana soo bandhigay in uu noqday qof muslim ah marka laga yimaado saaxiibnimada nabiga Abu Bakar as-Siddiq wuxuu ahaa sadaqa nabi Muhammad sanadkii 623 ayuu Abu Bakar as-Siddiq gabadhiisa Aisha u aroosiyay nabiga waqtigaas oo Aisha ay jirtay 9 sano midani ayaa waxay sii adkaysay xiriirka iyo isku xidhnaanta labadooda nabi Muhammad iyo Abu Bakar intii nabiga noolaa Abu Bakar as-Siddiq wuxuu ahaa saaxiibka iyo la taliyaha koobaad ee nabi Muhammad isagoo kala qayb galay arrimo aad u badan goortii nabiga uu hijroonayay magaalada Makka Abu Bakar as-Siddiq wuxuu ahaa qofka kaliya ee rasuulka la galay safarkaasi wuxuuna ka garab dagaalamay nabi Muhammad qaswada aad u badan oo ay ka mid yihiin dagaalkii Badr dagaalkii Uhud dagaalkii Dhufaysyada qabsashadii magaalada Makka dagaalkii Khaybar dagaalkii Hunayn go'doomintii Daa'if iyo dagaalkii Tabuk dagaaladani wuxuu Abu Bakar oo ku qarish gareeyay inta badan qarashkiisa ama dhaqaalihiisa si kastaba ha ahaatee goortii Nabi Muhammad geeriyooday waxa khulafaa raashidiinka si waafaqsan dardaarankii nabiga isla garteen in Abu Bakar as-Siddiq lagu wareejiyo hoggaanka iyo talada maamulka dawladda Islaamka waqtigaasi waxa dhacay khilaaf aad u weyn oo dad badan ayaa diinta Islaamka dib ugu noqday maadaama nabigii waxiga ku soo degayay uu geeriyooday Abu Bakar as-Siddiq wuxuu hoggaanka dawladda Islaamka hayay 2 sano iyo xoogaa ama 27 bilood taas oo isugu dabriday maamulka dawladdaasi guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena maanta inta barnaamijkan midkiisa xaga aynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadiino nooli kulanti dambe oo xiiso leh